Bismillahir Rahmanir Rahim. Mr. President, it's a great honor and pleasure to be here in the Democratic Republic of Congo to discuss and advance the bilateral relations of our two brotherly states and people. I thank His Excellency President Flex Tshisekedi and the people of the DRC for the wonderful welcome and hospitality afforded to my delegation during this historic visit. mudanayaal iyo marwooyin sharaf iyo farxad weyn ayay ii tahay inaan joogo halkan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo si aan uga wada hadalno xiriirka labada dal ee walaalaha ah iyo dadkooda. waxaan uga mahad celinayaa mudane madaxweyne Felix Tshisekedi iyo dadka reer Congo soo dhaweynta diiran ee heerkoodu sareeya ee loo sameeyay wafdigayga intii aan ku guda jirnay booqashadan taariikhiga. waxaan rabaa inaan qiro labada door ee sida kartida leh u ciyaarayso mudane madaxweyne. midda koowaad ahaanshahaaga walaalkayga qaaliga ah ee mirtigeliyay ahna hogaamiyaha qarankan weyn ee Afrika, iyo midda labaad waajibkaaga qaaradda ee gudoomiyaha midowga Afrika. I can assure you of Somalia's unwavering support of your ambitious policy priorities in both roles. Somalia and DRC enjoy a relationship built on mutual respect and cooperation for common endeavors, especially the sustainable development of our people and countries. waxaan ku xaqiijinayaa in Soomaaliya diyaar kula tahay taageero hagar la'aan ah oo la xiriirta hortabinadaada siyaasadeed ee labada kaalin ee aad ciyaarayso. mudanayaal iyo marwooyin Soomaaliya iyo DRC waxaa ka dhaxeeya xiriir ku dhisan xushmad iyo in la iska kaashado hadafyadeena midaysan, gaar ahaan horumarka waara ee bulshadeena iyo dalalkeena. dhinacyo badan labadeena qaran waxa ay sidoo kale leeyihiin taariikh adag oo xanuun badan oo ku suntan caqabado amni, siyaasadeed iyo dhaqaale oo aan dagaal ugu jirno sidii aan uga soo kaban lahayn, iyadoo ay naga go'an tahay jiraanna dhabar adayg iyo siyaasad ay bulshadeenu udub dhexaad u tahay. waxaan kugu hambalyeeynaya mudane madaxweyne Felix Tshisekedi aragtidaada horumarinta nolosha dadkaaga iyadoo loo marayo guulaha laga gaaray siyaasadda iyo dawlad wanaagga ee xoojisay dadkaaga tan iyo markii aad xafiiska timid, iyadoo si taariikhi ah oo nabad ah awoodda loogu kala wareegay DRC markii madaxweyne lagu doortay. way caddahay in dalku uu tallaabooyin muhiim ah u qaaday dhinaca dimuqraadiyeynta iyo hayaanka siyaasadda loo dhan yahay. In Somalia, like the brotherly DRC, we are also making clear and measurable progress on all fronts. Somalia is no longer the bad story coming out of African continent. We are a beacon of hope building on a track record of strong economic, social and political reforms. Somalia sida walaalaheen DRC waxaan dhinac walba ka sameynay horumarro la taaban karo. Somalia maanta ma aha warkii xumaa ee ka soo bixi jiray qaaradda Afrika. waxaan nahay ilays rajo oo haya dhabaha ay ku dhismayaan dhaqaale, bulsho iyo isbedel siyaasadeed oo xoogan sida walaalahooda DRC. dadka Soomaaliyeedu waxay doonayaan inay tiirdhaxaad u noqdaan horumarka dalkooda oo ay si xor iyo xalaal u soo doortaan wakiiladooda. arrinta ku saabsan dadaalada Soomaaliya ee qabashada doorashooyin nabad ah loo dhan yahay kuna dhacda waqtigeeda, dawladdeedu waxa ay soo dhaweynaysaa kaalinta midowga Afrika ee fududeynta habraaca ay leeyihiin oo hormuudka ka yihiin Soomaalida, taasi oo horseedi doonta wada hadal u dhaxeeya dhammaan basaamilayda Soomaaliyeed. waxaan dareensanahay habraaca noocaas inuu gacan ka geysan doono dib u soo celinta kalsoonida iyo xalinta qodobada la isku hayo ee doorashooyinka iyo arrimaha la xiriira dawladnimada. waxaan sidoo kale ku kalsoonahay joogitaanka midowga Afrika iyo doorkooda fududeyntu inuu gacan ka geysan doono is-aaminaadu inay dib u soo noqoto. We are also confident that the presence of African Union and the role of its good offices would help us restore trust. In Somalia, we are truly committed to achieving government by the people and for the people
in line with the best global democratic traditions. Soomaaliya waxaa si dhab ah nooga go'an inaan ku guulaysanno gaaridda dawlad ka timaada dadka oo ay dadku leeyihiin, taasi oo la jaan qaada dhaqamada dimuqraadiyadeed ee ugu wanaagsan dunida. iyadoo taasi laga duulayo, waxaan ugu baaqayaa dhammaanba saaxiibadeenna ay ka mid tahay Midowga Afrika oo aad adigu mudane Madaxweyne Felix Tshisekedi gudoomiyaha u tahay, inay taageeraan doorashadan taariikhiga ah iyo go'aankan waqtigiisa la gaaray. Soomaaliya waxa ay doonaysaa inay dhinac waliba ka sii xoojiso xiriirka kala dhaxeeya DRC si loo abuuro fursado ganacsi oo intaan ka badan iyo isku xirnaan dhinaca dhaqaalaha ah ee labadeena dhinac. mudane Madaxweyne, sidii markii hore aan sheegay, sharaf ayay ii tahay inaan halkan caasimadan quruxda badan ee Kishansa aan kula joogo. waxaan ku dareenayaa inay sii socdaan wada hadallada togan ee sare loogu qaadayo xiriirka labada dal. waxaa intaasi dheer, waxaa naga go'an inaan si dhow kula shaqeyno si loo gaaro ajendaha Midowga Afrika ee hortabinada 2063 si looga miro dhaliyo xasiloonida, horumarka iyo barwaaqada dadka qaaradeena quruxda badan. waad mahadsantihiin dhammaantiin. Furthermore, we are committed to working closely with you to realize the African Union Agenda 2063 priorities to achieve stability, progress and prosperity for the people of our beautiful continent. I thank you, Mr. President.